بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى ودرسيني لبعض كم ذا كتاب كيني الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. درسيني كوباد حلي وحكو سابسنا فاهين جود waxaan kaloo ka soo hadalay basmaladii iyo xamdigii iyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. intaas kadib marka musanifku intuusan maqsuudka kitaab looga soo qaadanaya maadaama uu ahaa imaam weyn oo muslimiinta marjic iyo u ah masdar u ah. wuxuu kii marka sheekhu wabacdu intaas kadib intii aan soo sheegay oo xamdigii iyo basmaladii iyo salligii iyo salaamtii iyo axaadiistii aan soo sheegay labadii xadiis intaas kadib fahaadihi midaan fahaadihi waxaa looga jeedaa ismi ishaaruhu uu ku dhacayaa alfaadan kitaabka ku qoran. fahaadihi midaan oo kitaabka ku qoran masaa'ilu masaa'il wey, masaa'ishaasoo mukhtasaratun lasoo gaabiyey. mukhtasar waxaa la yidhahdaa maa qalla lafduhu wa kathura macnaha, wixii lafdigiisu uu yaryahay macno weynna xambaarsan. risaalada hadda marka la fiiriyo lafdigeeda iyo intay ka kooban tahay way yar tahay, laakiin maxay xambaarsan tahay macno xoog weyn bay xambaarsan tahay oo 3 fanni baa ku dhex qoran saan ogaan doona insha allahu tacaala. idinkaan ogaan doona cilmiga ku jira yaraanteeda iyo cilmiga ku jira isma lahan. cilmi weyn oo baaxad leh ayaa ku jirta. wuxuu ku dhihi doonaa qofkii intuu barto ku camal fala waxaan rajaynaynaa qofkaas inuu noqdo qof ahlu cilmi ah xagga daahirka iyo xagga baatinka labadaba, waayo cilmigii waa ku dhamaystiran yahuu leeyahay risaaladan yarta ah. wuxuu ku yidhi fahaadihi midaani masaa'ilu masaa'il weeye, masaa-isha oo mukhtasaratun laga soo gaabiyey min bacdi kutubi xujati lislaami, islaamka xujadiisii kutubtiisii bacdi ka mid a laga soo gaabiyey. xujatulislaamkii alghazaaliyi ee ghazaali ahaa haaliban sida qaalibka ah. marka imaamulghazaali laqabkiisa ayaa wuxuu ahaa xujatulislaam, islaamka xujadiisii waaye. kunyadiisa waxaa la dhahaa abu xaamid, magaciisana waxaa la dhahaa maxamed ibnu maxamed ibnu maxamed ibnu axmed alghazaaliyi. 450 buu dhashay, 505tiina wuu dhintay. 55 sano ayuu jiray, laakiin wuxuu ka tegay turaaf weyn ayuu islaamka uga tegay. waa wax hadda laga faa'iideysto kutubihiisa, gaal iyo islaamba way ka faa'iideystaan hadda. wuxuu ku yidhi marka imaamkaas imaamulghazaali kitaabihiisa qayb ka mid aan kasoo gaabiyuu leeyahay marka risaaladan. fahaadihi masaa'ilu weeye, masaa-isha mukhtasaratun lasoo gaabiyey min bacdi kutubi xujati lislaami, islaamka xujadiisii kutubtiisii bacdi ka mid a laga soo gaabiyey alghazaaliyi ah xujatulislaamkaas. haaliban sida qaalibka, haalibanna wuxuu ku leeyahay sida badan macnaha hayru qaalib, inta badan macnaha ghazaali baan ka keenay kutubihiisuu leeyahay. laakiin masalo dhifdhif ah waa laga yaabaa inaan kitaabo kale ka soo qaato. macnaha man carafa qofkii barta haa masaa-ishan oo wacamila ku camal fala bihaa masaa-ishan, narjuu lahu qofkaas waxaan u rajaynaynaa min allaahi ilaahay waxaan uga rajaynaynaa an yakuuna inuu ahaado min ahlilcilmi dadka ahlu cilmiga, dhaahiran xagga daahirka iyo muuqaalka, iyo wa baatinan xagga baatinka iyo gudaha. wuxuu ku leeyahay qofkii barta masaa-ishan hadda meesha ku qoran ee kitaabku noo keeni doono, isla markaasna ku camal fala. ila barasho kilaa wax ma tarayso. cilmiga waa taqaanaa, tusaale ahaan salaada sida loo tukadaa taqaanaa, laakiin weligaa wejiga dhulka maadan dhigin. cilmigii muxuu kuu faa'iideeyey? salaada sida loo tukada aad taqaanin maxay kuu faa'iideysay haddaadan tukanaynin? sida loo soomo waa taqaanaa, axkaamtii soomka waxa buriya arkaantiisa shuruudiisa dhammaan waad baratay, laakiin weligaa maadan soomin hal maalina. muxuu kuu faa'iideeyey cilmigii? xajkii waa taqaanaa, acmaashii xajka oo wax walba sidii xajka loo gudan lahaa wixii dhan waa garanaysaa. ilaahayna maal wuu ku siiyey, laakiin weligaa xajkii maada aadin. maxay kuu tartay marka? barashadii aad baratay waxba kuuma tarin. idan maqsuudka cilmigu waa maxay? waa camalfal. ilaahay subxaanahu watacaala hana karsiiyo cilmiga ku dhaqankiisa iyo camalfalkiisa. wuxuu ku yidhi marka sheekhu man carafa qofkii barta haa masaa-ishan, qofkii barta masaa-ishan kitaabka ku qoran oo wacamila ku camal fala bihaa masaa-ishii, isla markaasna haddana ku camal fala, narjuu waxaan u rajaynaynaa lahu mankaas
من الله إلهي حقي سوحان ورجينينا أن يكون إنو أهابو من كاسي من أهل العلم دادك أهل العلم ظاهرا حق ظاهر كان أهل العلم كان نغضو وكسفوا بعلمي ظاهر كا علم ظاهر كوا علم الشريعة دي علمي أحكامتي شريعة وقف كسفوا بإنو نغضو إيا وبعدنا حق بعدن كان أهل العلم كان نغضو وكسفوا بعلمي بعدن كإيا قلبي الله تعالى علم البعدن كوا علم القلوب والحقيقة أسونا وحكم دي من الشريعة وعلم التصوف كا هذا شيخ وحسمين دونا رسالة إن شاء الله وأنت دونا قيبت كواد عقيدة دي إيمانك ينوغو شرح دونا قيبت اللبعضنا ونوغو شرح دونا عباداتك سيدة طهارة دي صلاة دي صومك زكاة حجك ونوغو شرح دونا قيبت أقدم بيسانا علم القلوب كي التصوف كي التزكية ده انقفكو إسكا إلى علي أو صافت حنحن كور هذا إشاء كو وناكسنا وكسف أيه أن أعضادي يحمله سنة وواردية ومعصية وواردية سيدا إنديهيسي دقيهيسي قعميهيسي لوغيهيسي عراشيسي فرجيسي لمان وحمانتا إيه معصية وغا إلاليو وحاصل لنبو نباري دونا وحلوكي مركا وبالله إله بي التوفيق وأحاتي توفيق دا إلهي با إسكاله أود أنيقى عن الله يعني وحلو يا مصنفكو أنيقى أود عن الله يهي إيه حالات عن الله يهي إيه قوة عن الله يهي إيه رقنما عن الله يهي كتاب كان كما قرن رسالة كان كما قرن محان كو قري توفيق رباني او إلهي إسيي إلهي إوافجي أيان كو سميو ليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله صمه إذن كم مدوني كرتان إلى إلهي إنو دونا معنا إذن أود إلهي إيا توفيق إيا وافجنت إلهي إيا إلهي إنو إكرسيي بان كتابك كو اللي فيه ليه وبالله إلهي بي التوفيق أهاتي وافجنتنا إلهي با إسكاله إلهي با إكرسيي ضاعضا وين كتاب كان إنان قرأه إلهي سبحانه وتعالى أيا إكرسيي أيو لي مصنفكم رحمه الله تعالى أركان الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم